barnaamijka annagoo goordhow gudageli doona wuxuu ka koobnaan doonaa kadib markaan aayadaha qur-aanka ku furanno kadib markaan aayadaha qur-aanka ku furanno waxaa xigi doonaa astaanta qaranka oo nu wada istaagi doonno haddii aaba yidhaahdo waxaa xigaya cayaaraha hiddaha ee dhaqanka soomaalida oo cayaarta dhaantada waxaan ka codsanayaa buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo dadka dhinaca bidixda ha layga bixiyo dadka jooga waxaa xigi doona cayaaraha hiddaha ee dhaqanka soomaalida cayaarta dhaantada ayaan haddii aaba yidhaahdo soo bandhigi doonaa cayaaraha iyo heesuhu waa ku dhex socon doonaan barnaamijka iyo khudbadaha waxaa hadli doona khudbado ay jeedin doonaan madaxweynayaasha ka soo qayb galay ee na sharfay ee soomaaliya taageerada la garab taagan ra'iisul wasaarayaasha wufuudda ay hogaaminayaan wasiirada iyo wasiiru dowlayaasha dalalka kala duwan ee soomaaliya ay saaxiibada yihiin oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti hiil walaal ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo badan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Masar wasiirka Sacuudiga ee arrimaha dibadda wasiirka beeraha ee Turkiga wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Qatar wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta dalal kale oo badan oo wufuudooda ay hogaaminayaan ilaa xataa heer madaxweyne ku xigeen oo aan hafay waa madaxweyne ku xigeenka koonfurta Suudaan wafdiga dalka Suudaan iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Uganda ahna ra'iisul wasaare hore iyo marti sharaf kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin ururada aan xubnaha ka nahay sida IGAD ururka midowga Afrika ururka jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay marka ka soo qaybgalku aad ayuu qurux badan yahay una tiro badan yahay munaasabadan waxaan rajaynaynaa in sidoo kale u qurxanaato wixii hadda ka bilowday mar hadday noo bilaabatay waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo aayadaha qur-aanka aan ku bilaabo in aan ku bilaabo oo uu noo akhrin doono ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahad Guuleed falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم علماء واجوكتا هاوشيو إسسو هاول قشيبا دق مدحوينها جمهورية الفدرالكا مدحوينهاشا iyo ra'iisul wasaarayaashii marti sharafta kale dhamaantii waan salaamaya iyo martida guud ahaanba بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق هي صبرك حق النظام كاملا صبر كان اسكو دردارين دulqaad ka kamida labadiiba way tahay aynu u banayno madaxdeen runtii isdhageysanana waxa halkaas wasiirka Turkiga oo beeraha dib uga yara durka aynu nidaamka dhowrno si fiican barnaamijku insha Allah way noogu soconaya soo dhaw Yusuf waa mahadsantiin waad mahadsantahay ra'iisul wasaare waad ku mahadsantahay quraanka iyo intaad ku darsatay waxaan jeclahay barnaamijka inaan guda galno qolyaha muusiga oo astaanta qaranka goordhow aan weydiisan doono inay diyaar noo ahaadaan buuqana la yareeyo salaanta calanka la qaato waxaan jecel astaanta qaranka inaad noo daartaan muusiga annaguna aan dhammaanteen wada istaagno min fadlakum aan ka codsado inay istaagtaan. Would you please stand for the Somali national anthem?
Thank you very much. Thank you very much. barnaamijku intuu socdo waxaa jira tarjamo loo sameynayo dadka ajnabiga ah dadka aan dhaho aan Soomaaliga ku hadlin tarjamo loo sameynayo oo Somali English ah min fadlakum dadka dhagaha kan lagu dhageysto haysta ee tarjamadu ka socoto ee af Soomaaligana yaqaana ha u gudbiyeen ajnabiga si ay u dhageystaan. There will be directed translation over the headphones, and I hope they will be provided to all delegations who do not speak Somali. It's Somali English interpretation. But most of the program will be visual, and you will see it for your eyes. waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo kooxda fanaaniinta ah oo noogu bilaabi doonta irideeda in la diyaariyaan jecelahay fanaaniinta oo noogu bilaabi doonta ciyaarta dhaantada fanaaniinta diyaar maaha miya kooxda fanaaniinta ee ciyaarta dhaantada ciyaari lahayd alla soo gudbiyay iridda ay taagan yihiinba munaasabadan aan maanta isugu nimid waxaa iyaguna goobjoog ka ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane محمد عبد الله فرماجو oo ah madaxweynaha hadda xilka ka degay iyo madaxweynaheenii hore mudane Shariif Sheekh Ahmed waxa iyaguna goobjoog ah gudoonka labada aqal ee baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare waxa goobjoog ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa jooga gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxdii kale ee dalka Soomaaliya ee isugu jira xildhibaano iyo wasiiro xildhibaano labada aqal ee golaha ah waxaa jooga taliyaasha ciidanka dawladda Soomaaliya waa ay ku dhantahay goobta waxaan rajaynayaa markan inaan u galo khudbadaha qaarkood inaan u galo ayaan jecelahay oo aan soo dhaweeyo raalli hada waxaan soo dhaweynayaa wasiirka Turkiga ee beeraha I would like to invite the minister the agriculture minister of Turkey for his remarks on this on this occasion. Please welcome to the podium. programka waan sixi doonaa isbedel yar aan ugu dhacay laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa Turkiga marka hore please welcome Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını getirdim. mudane madaxweyne waxaan ku sidaa salaan aan ka wado madaxweynaheena Turkiga Somali'de tamamlanan seçimler ve göreve başlanmamız vesilesiyle zat-ı devletlerini ve Somali halkını gönülden tebrik ediyoruz. kadib doorashadii
sida guusha ah ku soo gabagabowday waxaan si kaliyo laab ah kugu hambalaynaynaa mudane madaxweyne adiga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Zatı devletlerini ikinci eviniz olan ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Waxaa farxad weyn inoo noqon doonta inaan kugu martigelino waddankeena Turkiga oo ah waddankaagii labaad. Ziyaretiniz önümüzdeki yeni dönemde ikili ilişkilerimizi her alanda ilerletebilmek amacıyla atabileceğimiz müşterek adımları ele almak için önemli bir fırsat olacaktır. Booqashada aad ku tagi doontid waddankeena waxay noqon doontaa tallaabo lagu horumarinayo ama sare loogu qaadayo xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya labadeena dal. Somali'nin ülkemiz için özel ve müstesna yerini çok iyi biliyorsunuz. Mudane madaxweyne waxaad ka dherigsan tahay ama aad la socotaa in Soomaaliya ay meel gooni ah nagaga taallo. Somali'de başlayan bu yeni dönemde özel ilişkilerimizin daha da gelişeceğine samimiyetle inanıyoruz. Muduxileedkan cusub ee bilaabanaya waxaan aaminsanahay in la sii horumarin doono xiriirka gaarka ah ee ka dhaxeeya labadeena dal. Türkiye her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya devam edecektir. Dowladda Turkiga sidii ay horeba u ahaan jirtay waxay sii wadi doontaa garab istaagga shacabka Soomaaliyeed. Zatı devletlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı adına bir kez daha tebrik eder, şükranlarımızı sunarız. Allah'a emanet olunuz. Mudane madaxweyne mar kale iyo mar labaad yaan ku hambaliyeynayaa oon ku leeyahay hambaliyo waa mahadsantihiin. ماجد كريستيج وزير dalka Turkiga waan uga mahadcelinaynaa khudbadiisa anigoo cudur daar idin siinaya waxaan jecelahay inaan markaan sameeyo soo dhaweynta dowladda Soomaaliya oo aan u yeero ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo fuudo dhan dalka ku soo dhaweyn doona. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود مدحوينياشي هوري دالك مدن محمد عبد الله فرماجو iyo mudane Shariif Sheekh Ahmed madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya mudane Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha Ethiopia mudane Abiy Ahmed رئيس الوزراء مصر مدن مصطفى مدبولي مدحوينه كحيجينك سود السودان مدن تبان دينغا وزير كريمه دبد بقرطويد السعوديه العربيه
مدن فيصل بن فرحان مدحدا وفديده كلا دوان ee matalaya dalalka caalamka wasiirada safiirada wakiilada beesha caalamka iyo ururada caalamiga guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah in aan idinku soo dhaweeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudanayaal iyo marwooyin 5 sano ka hor qaarkiin ayaa hoolka uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha sagaalaad mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka kala wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxa aad goobjoog u tihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay hogaaminta dalka xilkana si nabad ah ugala wareegay madaxweynihii ee 5 sano ka hor uu ku wareejiyay marka koowaad waxaan leeyahay hambaliyo madaxweyne Xasan Sheekh oo runtii iskoor dhigay oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad la doorto dalka Soomaaliya tan waa mid ka mid ah tusaalayaasha ifaya iyo hanaanka qori isku dhiibka ee ay Soomaaliya ku soo caana maashay tan iyo shirkii carta ee sanadkii 2000 oo madaxweynihii Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo aabbaha u ahaa markaas oo Soomaalidu isla qaadatay in muddo xileed kasta kadib la qabto nooc doorasho ah oo raali la isaga yahay xukunkana si nabad ah lagula kala wareego doorashadii hadda dhacday ee u dambeysay ma ahayn mid sahlan waxaana ku wareegsanaa cabsi badan hubanti la'aan iyo kala aamin bax siyaasadeed oo dalka qatar u galiyay in uu dagaal ka qarxo laakiin Allah subhanahu wa ta'ala mahadiis waxaan dadaalkeennii isugu geynay inaan hirgelino doorashada oo ahayd habka kaliya ee looga baaqsan karay masiirkaas Soomaaliya mugdi gelin lahaa waxaan uga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidii ay nooga garab istaageen hirgelinta doorashada iyo dulqaadkii ay muujiyeen iyo ducadii ay har iyo habeen wadeen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ciidamada Soomaaliyeed kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS madaxweynayaasha dawlad goboleedyada beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta doorashada sida guusha Allah subhanahu wa ta'ala uu inoogu soo dhameeyay waxaan mar kale u hambaleynayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aan hubo in uu yahay hogaamiye khibrad leh iyo nabadoon wax isku wad leh oo ku soo beegmay xilli loogu baahida badnaa in uu hoggaanka dalku qabto waa madaxweyne aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa leh waxaan u rajaynayaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu eebbe la garab galo mas'uuliyadda qaran ee loo doortay annaguna aan garab ayaan u nahay una noqon doonaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in ay madaxweynaha iyo dawladaba garab iyo gaashaan u noqdaan una duceeyaan sidaad la socotaan Soomaaliya waxaa maanta ka jira duruufo adag
oo ay ugu daran yihiin abaaro ba'an argagixisada oo amniga khatar ku ah culaysyo dhaqaale shaqo la'aan iyo arrimo kale oo badan sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa saaxiibada Soomaaliya dalalka gobolka iyo guud ahaan daneeyaasha arrimaha Soomaaliya inay dawladda ka taageeraan sida ay ugu gudbi lahayd culeysyada aan soo sheegay ugu dambeyntii guul ayaan u rajaynayaa madaxweyne xasan sheekh ballanteenu waa ka dhabaynta halku dhigi Soomaali heshiisa dunida heshiis la ah waxaa idin leeyahay mar kale soo dhawaada waad mahadsantahay mudane ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa mahad celinaynaa eryadiisa waxaan jecelahay markana inaan u yeero wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isu taga imaaraadka carabta His Royal Highness Sheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية قبل أن أبدأ الحديث أني أعتذر على سوء فهم البروتوكولي. مفروض نحن نلقي بعد فخامة الرئيس وبعد أصحاب معالي رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء أيضا اللي سبقونا في الترتيب، ولكن بسبب مواعيد الطيارة فتم أتوقع تفاهم الأخوة في الصومال. فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، نعم both أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بداية أن أنقل تحيات وتهنئة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله إلى فخامة حسن شيخ محمود بمناسبة انتخاب فخامتكم رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتمنيات سمو لفخامتكم بدوام التوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يطلع إليه الشعب الصومالي الشقيق نحو التقدم والرخاء والنماء. كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامتكم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. فخامة الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، ترحب دولة الإمارات بانتهاء العملية الانتخابية والانتقال السلمي للسلطة في الصومال باعتبارها خطوة هامة على مسار إحلال السلام والازدهار والتنمية في الصومال. وفي هذا الصدد فإن دولة الإمارات تؤكد على التزامها بمواصلة التقدم والدعم والمساندة للشعب الصومالي الشقيق، والوقوف إلى جانبه في سعيه لبناء دولة مستقرة تنعم بالسلام والرخاء، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين. كما تجدد دولة الإمارات التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز السلام في الصومال وتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق بكل من مكافحة الإرهاب المضي قدما في ترسيخ التنمية والازدهار في البلاد بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين. وختاما، فخامة الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كافة المجالات بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وتتمنى قيادة دولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار للصومال الشقيق وشعبها الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you very much, Your Royal Highness. munaasabadda dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaa ka mid ah madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Mustafa iyo mas'uuliyiin kale oo badan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarayaashii hore mudane Xasan Cali Khayre iyo mudane Cabdiwali Gaas, mudane Saacid Shirdoon iyo rag kale oo badan. waxaan jecelahay inaan sii wadno khudbadaheena. I'm now inviting to the podium the special presidential envoy of Uganda, Honorable John Patrick Amama Mbabazi, to come to the podium for his speech. I speak in English. Your Excellency Hassan Sheikh Mohamud, the 10th President of the Federal Republic of Somalia, Your Excellencies, Presidents and Heads of State, Heads of delegations, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, Mr. President, my delegation and I bring you very warm congratulations on your accession to the presidency of the Brother Federal Republic of Somalia from your brother, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda. He asked me to convey to you his best wishes for your success as you prepare to take up the responsibilities and the challenges of the high office you hold now. As you embark on your new responsibilities, President Museveni wishes to assure you and the people of Somalia of the continued friendship and sympathetic interest of the Ugandan government and the people. He looks forward to working with you not only to develop closer relations between our two countries, but also to unite our efforts in the cause of peace and the brotherhood of all peoples. I wanted to say something in Arabic, but we wish you success and may God bless you. Thank you. Mr. Mbabazi is also a former Prime Minister of Uganda. Thank you very much. I would like now to invite the representative of Qatar, the State Minister for Foreign Affairs, His Royal Highness Sheikh Fahd bin Faisal Al-Thani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Actually, he surprised me for this short speech, but I'm glad here to be with you, Mr. President, and ونفتخر أيضا وأيضا ننقل تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لفخامتكم، ونتمنى لجمهورية الصومال الرقي والنمو، ونحن في قطر كما وعدنا
وكما أخبرنا صاحب السمو مساندين لجمهورية الصومال وداعمين لجمهورية الصومال أيضا، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والخير. شكرا فخامة الرئيس. Thank you very much, Your Royal Highness. I would like to invite South Sudan, the Vice President of South Sudan, His Excellency Taban Deng. Your Excellency Hassan Sheikh Mahmoud, President of the Federal Republic of Somalia, Excellencies, Head of State and Government, Honorable Mohammed Hussein Ramli, Prime Minister of Somalia, Excellencies, Representative of Government and States, Your Excellency, the friend of South Sudan, former President Farmajo, Shab Somali Shaqiq, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of my President, His Excellency General Salva Kiir Mayardit, let me take this opportunity to congratulate President Hassan Sheikh Mahmoud for the trust bestowed upon him by the great people of Somalia. His Excellency President Salva Kiir Mayardit commend the outgoing President and the people of Somalia for carrying out very transparent, fair, and credible election. This is very historic for Somalia, for IGAD region, and for the African continent. Today, Your Excellency, marks an important milestone in history of Somalia as well as that of the region. The people and government of South Sudan congratulate the new president of the Republic for winning the trust of the people of Somalia. We are looking forward to work with him and strengthen cordial relation and bilateral relationship that is existing between the two sister countries. The people of Somalia have shown to Africa and to the world that they are capable of moving their country from crisis to peaceful and viable nation state that strive to meet aspiration of her people. The government of the Republic of South Sudan under His Excellency Salva Kiir Mayardit truly believe that peace and stability of the Federal Republic of Somalia is key to the stability and long-term development for the IGAD region and Africa. South Sudan and Somalia have shared history, and that is why bilateral relations between the two sisterly countries are very strong, because all are based on mutual respect, mutual interest, and non-interference on each other's internal affairs. The Republic of South Sudan is grateful to have the Somali business community in South Sudan as reliable business partners that are immensely contributing to the economic growth of our nation. انتوا عارفين يا شباب الصومال جنوب السودان بلدكم الثاني. نحن عندنا جالية كبيرة جدا في جوبا وفي كل الولايات بتاع جنوب السودان. نحن شركاء في المصالح، شركاء في السلام، وشركاء في الاستقرار وفي تنمية إن شاء الله.
Your Excellency, the President, on this gracious occasion, may I bring you good news from South Sudan that our parties to agreement under our able President Salva Kiir Mayardit agreed on the unification of forces and command structure. This part of security sector reform was the most difficult part of the agreement to implement. These forces will be graduated soon, and His Excellency President Salva Kiir Mayardit invite all heads of state and government for the graduation ceremony to take place very soon. So we wish to see you in Juba very soon so that you share with us that celebration. As you know, we have helped Somalia and other countries of IGAD have helped us broker peace in South Sudan, which is working today. We also thank Somali people and their government, and especially the outgoing president, His Excellency Mohamed Abdullah Farmajo, and the previous presidents of Somalia for continuously participating in our national events since our independence 2011. This shows that the good people of Somalia and their government are a true friend of the government and the people of the Republic of South Sudan. ربنا يبارككم وإن شاء الله سلام في صوماليا وكل الاستقرار والتنمية ونحن ماشيين قدام إن شاء الله نحن معكم شكرا. Thank you very much. I would like to welcome the Minister of Defense of Burundi, His Excellency Alain Mutabazi. Excellences, Monsieur le Président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, Excellences, Monsieur le Président, ici présent, Excellences, chefs de délégation des différents pays ici présents, les Excellences de la communauté internationale et des représentants du peuple somalien. Je suis Alain Tribert Mutabazi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Burundi. Et je représente Son Excellence le Président de la République du Burundi, Général-Major Evariste Ndayishimiye. Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale de Somalie, premièrement, recevez les salutations de Son Excellence, votre homologue, Général-Major Evariste Ndayishimiye, et les salutations du peuple burundais. Et tous, nous vous félicitons pour la réélection à la présidence de la République fédérale de Somalie. Le peuple somalien et le peuple burundais ont des relations historiques et anciennes, et nous aimerions et nous sommes très contents qu'avec votre présidence, les relations vont aussi s'améliorer. Nous vous souhaitons donc plein succès. Et nous vous souhaitons aussi la paix, la sécurité et le développement pour tout le peuple somalien. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Shukran. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ministre de la Défense de Burundi, Alain Mutabazi.
waxaan idin xusuusinayaa in wafdiga Uganda ee uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Uganda in uu ka mid yahay wasiirka difaaca ee Uganda. waxaan jecelahay markan inaad ila soo dhaweysaan wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga boqortooyada Sacuudiga His Royal Highness Faisal bin Farhan Al Saud. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الحفل الكريم، يطيب لي بدءا أن أنقل لفخامتكم تحيات وتهاني سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بمناسبة تنصيب فخامتكم رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمنيات القيادة الحكيمة في بلادي لكم بالتوفيق والسداد، ولشعب الصومال الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. ونود أن نعبر لفخامتكم وللشعب الصومالي عن سعادتنا بالمشاركة في هذه المناسبة التي تتمنى المملكة بأن تفتح آفاقا جديدة لمستقبل مشرق لصومال مستقر ومزدهر. وسوف تكون المملكة العربية السعودية دوما سند وشريك وداعم لصومال ذات أفق مزدهر إن شاء الله. ونود أن نغتنم هذه الفرصة أن نعبر لكم عن حرص المملكة على توثيق عرى التعاون والتنسيق المشترك بين بلدينا بما يحقق أمن واستقرار المنطقة أجمع والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. waxaan jecelahay markan inaan u yeero ra'iisul wasaaraha dalka Masar Dr. Mustafa Madlubi ila soo dhaweeya. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أصحاب الفخامة والمعالي الرؤساء والوزراء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال. فخامة الرئيس والسادة الحضور، إن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960. ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته. فخامة الرئيس، تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا، وهناك مواقف تاريخية مشرفة متبادلة لكلا البلدين. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر دعمها للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطي الصومال لتحدياته الراهنة
وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر، وتدعو جميع الأشقاء للوقوف إلى جانب الصومال ومساندته وتقديم الدعم اللازم له حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار في الصومال وتعود الدولة الصومالية كعضو فاعل وقوي ومؤثر في المجتمع الدولي. ونؤكد تطلعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين. اسمحوا لي في الختام أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في مقديشيو، وأتوجه لفخامتكم ولجميع من شاركوا في هذا الحفل بخالص الدعوات بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مهد علينا رئيس الوزراء مصر وخطبتي سعادة جيدية مناسبة ما تلوى على مسارين مدحونها تبنادي الصومالية مدن حسن شيخ محمود، وحن جعلها مركن إن دي لسن ويسان رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد. Your Excellency, President Hassan Sheikh Mahmoud, honorable speakers of the lower and upper houses of Somalia, Your Excellencies, heads of state and government, distinguished members of the Somalia Parliament, ambassadors and heads of diplomatic mission, distinguished guests and ladies and gentlemen. From the outset, Mr. President, let me congratulate you again on behalf of my government and that of my own on your assumption of the presidency of this resilient and entrepreneurial people of Somalia. I stand here today to offer you Ethiopia's support, and as you know, as you start your endeavor to rebuild Somalia, we will be with you, and I'm sure you will succeed. Hambaliyo, hambaliyo, mudane, madaxweyne. Waxaan ku rajaynayaa in Ilaahi ilki kugu astro. Waxaan u rajaynayaa shacabka Soomaaliya nabad waarta iyo barwaaqo. Mr. President, I am extremely happy to see a smooth transition of power in Somalia. What I have observed so far is very much reassuring that there will not be a power transfer in Somalia both at the federal and regional levels without elections. This does not mean, however, that elections do not come and go without some setbacks. Nevertheless, the incremental steps taken towards harnessing democratic process within the whole region will positively shape our collective standing. The government and people of Ethiopia in the last few years have strengthened ties with our brothers and sisters in Somalia. This has come about as a result of a change in our foreign policy, which is rooted in collaboration for mutual growth and development. We don't view our progress as a nation separate from that of our neighbors, for we truly understand that a neighbor at peace with itself is an ally for our path to prosperity. Our regional integration aspirations are premised on maximizing our existing cultural,
economic, and political assets. I have no doubt that with your leadership, we'll further consolidate and multiply the gains we have made in diplomacy in the past few years. Somalia has continued to see an opportunity for progress and development in spite of the many challenges that the nation is confronted with. I wish you and your government that would soon come into being much success to achieving the political and the roadmap you have outlined. In light of this, the government of Ethiopia is fully behind you in implementing the one person, one vote universal suffrage in 2025 after 58 years. Mr. President, you have already put a challenge upon yourself to complete the constitutional tasks, a smooth federalization process, and to work on the security as well as the public financial management reforms. I want to once again express and reiterate the commitment of the government of Ethiopia to Mr. President and the people of Somalia at large. My government is committed to work together in a more robust relationship to achieve a better future to our people and to determine our mutual destiny together. Waha inga goan in ansi hoja inno iskashiga labada dal iyo dad ihe walahara. Somalia ha nolato, Ethiopia ha nolato. Thank you very much. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo maanta khudbadiisina af Soomaali ku dhex daray waan soo dhaweynaynaa arrintaas waxaan jecelahay inaan xuso in wafdi ballaaran oo jaaliyadda Soomaalida ee Islii ay goobjoog yihiin iyagana waan soo dhaweynaynaa karibu sana ayaan leenahay markana waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo oo aad ila soo dhaweysaan I would like to invite President of Kenya Uhuru Kenyatta. Thank you. Your Excellency and dear brother, President Hassan Sheikh Mohamud, Your Excellencies, heads of state and government, Your Excellencies, heads of delegations, honorable members of Somalia's parliament, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Your Excellency, President Hassan Sheikh Mohamud, I extend to you, my brother, my hearty greetings and congratulations. I bring to you today a message of goodwill and best wishes from the government and the people of the Republic of Kenya on your re-election and inauguration as the 10th President of the Federal Republic of Somalia. Mr. President, Kenya welcomes warmly the peaceful transition of power and commits to collaborate with you and to support you as you champion the development agenda of the Federal Republic of Somalia. As you know, Your Excellency, Kenya's desire is to further consolidate and forge closer relations between our two countries for good neighborliness and social economic cooperation, regional stability, which is in the best interests of our people. Indeed,
Kenya recognizes that our own stability and economic well-being are dependent on the stability and economic well-being of Somalia and the region. So, Your Excellency, a peaceful and prosperous Federal Republic of Somalia is the dream of every Kenyan. Your brothers and sisters in Kenya look forward to working with you so that we can all benefit economically and prosper together. I personally look forward to working with you to remove all barriers to trade, to open our borders, and to establish air links between our two countries so that our people can come closer together. I want to commend you, Mr. President, for I've had an opportunity to work with you before, for your dedication and commitment to peace and security in our region. And I am confident that working together, we shall succeed in delivering our dream of a peaceful, prosperous Federal Republic of Somalia, a peaceful, prosperous Kenya, and a peaceful and prosperous region. Your Excellency, let me once again, through you, reiterate Kenya's commitment and support to you, your administration, and the people of Somalia in promoting and upholding peace and security in the region. I look forward, Your Excellency, to opportunities that enable both governments to continue working closely to enhance and strengthen the bonds of brotherhood and strategic cooperation for the mutual benefit of our beloved citizens. My brother, dear President, you can count on Kenya as a dependable partner to Somalia and your development agenda. Congratulations. mahadsanid madaxweynaha Kenya waxaan jecelahay barnaamijka oo meeshiisa nooga sii socon doona in hobolada waaberi si kooban ciyaarta dhaantada ay noogu soo bandhigaan goobtan waaberi ku soo dhawaada waqtiguna waa kooban yahay. I would like to welcome the national band Waberi, who will perform a Somali traditional dance, Danto.
Mahadsantihiin, habeenkii. That was the last class, and I think the one before is coming. waxaan jeclahay markana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدن مدحوينه مدن يال مدحوينه يال هوري مدن رئيس الوزراء وضيضا talada waddanka qaybta ugu wanaagsan hayaaye baarlamaanka labadiisa aqal iyo xubnihiisaba salaanta islaamka nagu salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa aan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadana maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna Soomaaliya in aan u hambalyeeno in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen keentay shalay iyo maanta shalayna laba madaxweyne ayaa isweydaarsaday maantana labadii unbaa isku noqotay labadii unbaa isweydaarsatay iyaga oo niyad sami ku jirto walaalnimo ku jirto dimuqraadiyaddu sheegayso soomaalinimaduna ay sheegayso taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheegno. Soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xooggeega oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay waxa aan loo naalloonayayna inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma gacantiinna isku maamula khayraadkiinna la soo baxa kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uun inaanan la noqon. taasina halgan dheer bay doonaysaa is-aaminaad bay doonaysaa isku kalsooni bay doonaysaa walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto oo dalkuna marka uu ku yeedho waan sara joogaa gebigiinnaba in laynaga maqlo ay waajib idin saaran wey. madaxweynaha waan u hambalyeynay waan hambalyeynaynaa waan hambalyeyn doonaa laakiin haddii dadka Soomaaliyeed uu iswada garab taagoona tallaabadiisii 10 jeer buu ayuu sii kordhini doonaa. waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh isaga oo soo maray
maxaanku idhaahdaa xukunku waxa uu yahay isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro isaga oo garanaya waxa soo socda sida uu u maamuli doono sida uu u maarayni doono sida uu turxaanta uga saari doono sida uu uga bayri doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno kuu hayno kalgacal ku hayno waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda Soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno mar kale hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullah mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku mahadsan yahay khudbadiisa waxaan jecelahay markan inaad ila soo dhaweysaan madaxweynihii hore madaxweyne Shariif Sheekh Axmed بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن مدحويني هراء دلك محمد عبد الله فرماجو مرت شرفك ولكن مدحوين إسماعيل عمر جيله رئيس وزراء إثيوبيا مدحوينها دلك كينيا مدحوينه ku-xigeenka dalka Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga wasiir dawlaha arrimaha dibadda Imaaraadka wasiirka arrimaha dibadda Qatar ra'iisul wasaaraha dalka Masar ra'iisul wasaaraheena Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare xildhibaanada dhammaan marti sharafka dhammaan wufuudda madaxda noo timiday xildhibaanada sharafta leh ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ra-iisul wasaare cali geedi kaama tegin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saaxiibaday gudoomiyaha gobolka dhammaan martida kala duwan waa salaamantihiin intaas kadib sharaf weyn ay tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan qiimiga badan labadii madaxweyne ma iga horeeyeen ma soo iga dambeeyeen horta iga dambeeyay xilka kala wareegayaan runtii ani waxaan aaminsanahay inay tahay taariikh dadka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaateen iyo dawladaha jecel Soomaaliya dadka jecel Soomaaliya in doorasho la galo si nabada lagu la kala wareega xilka arintaas waxay muujinaysaa bisayl siyaasi ah marka qof kasta Soomaaliya oo qayb ka geystay iyo dhammaan dadka jecel Soomaalida waa ugu hambalyeynaya waxaan leenahay waana mahadsantihiin dadaalkiina madaxda meesha joogta mayara waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka kilinka shanaad Mustaf waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli marka qofkii magaciisa aan sheegi waayo raalli iga ahaado waa igaad maxaan ku idhaahdaa African Union iyo UN-ka wasiirka Turkiga intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo walaalkay madaxweyne Xasan Sheekh sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
aniga waxaan aaminsanahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu guulaysto iyo in laga guulaysto waxaa u fiicneed in laga guulaysto sababtuna waxay muujinaysaa wixii annaga aan sheegaynay oo ahayd doorashadu cadaalad ma aha wax ka duwan marka meesha waxa laga rabaa cadaalad ay ahaayeen hadduu asaga soo naqa lahay marka waxaa dhihi lahayn cadaalad ma waa kaftan intaas waxaan u malaynaa aniga hadal badan layma siinin kaliya inaan habi ku ahay natiijada ku soo dhaweeyo u ballan qaado madaxweynaha inaan garabkiisa taaganahay siday horeba aan u garab taagnayn intaasaan rabaa inaan idhaa aad iyo aad aa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi waan u mahad celinayaa madaxweyne shariif in uu ii hadlay dad badan oo ishaydu qaban weydayay ra-iisul wasaare cali maxamed geedi iyo madax kale oo badan ayaa fadhiya waxaa fadhiya AU commissioner waxaa fadhiya IGAD executive secretary kulli inta aanan aragoo dhan waa ka cudur daaranayaa ama aanan magacooda halkan ka xusin oo mudnaa in la xuso waxaa fadhiya wasiirro fara badan madaxweynayaashun baan sheegnay iyo madaxda ergooyinka laakiin dalalka qaarkood waxaa ka socda 7 ilaa 8 wasiir oo ka soo qayb galay munaasabadan waxaan jeclahay markana inaan soo dhaweeyo dila soo dhaweysaan madaxweynihii hore madaxweynihii hadda xilka ka degay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدحوينياشا دولدها درس كنلاء iyo ra'iisul wasaarayaasha gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaasha baarlamaanka labada aqal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ra'iisul wasaarayaashii hore madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa mahad leh allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalkay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyaan ku leeyahay waana wax aan ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ayna noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay waa guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto waxaan ognahay in dowlado institutionkooda naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad guushan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcaddeenna dowladnimo waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeenaba sare u qaaday macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay laakiin waxaan ka barannay qori isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanan ku horumarinayno waxaa tusaale ah markaan dib u milicsanno qori isku dhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyey waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo ayadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniba waxaan u mahad celinayaa dowladaha nagu garab siiyey dowlad dhiskeenna sida dowladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin admis
horeyna loogu yaqaanay amisom marna ma ilaawi doonno ciidamada amisom ama admis ee naftooda u huray xubnahooda qaaliga ah ku waayey difaaca dalkan waxaan u mahad celinaynaa dowladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada noo dhisa in Soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto waxa kaloo mahad iska leh shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaada muwaadin kasta waxa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada ilaaliyo sumcadda dowladdeena iyo madaxdeena oo waliba aan ugu duceyno inuu Ilaahay u fuudeeyo waxa kaloo muhiim ah inaan u mahad celino ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dowladnimada una huray naftooda Allah u naxariisto inta naftooda ku wayday difaaca dalkooda madaxweyne waa ku garab taagannahay waana kula shaqeynaynaa wixii tala aad na weydiisatana diyaar ayaan kula nahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda Soomaaliyeed u hari doona adigana legacy ku noqon doonta ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed waxaan mar kale aan ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dowladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan u yeero madaxweyne Sheekh Shariif inuu soo joon garayo waan mahad celinayaa madaxweynihii hore madaxweyne Farmaajo waxaan jecelahay markan munaasabadda annagoo gunaanadkii marayna in aan soo wada dhaweyno madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يا مرويين ولا لها الصوماليات رئيس الوزراء هي حكومة حلقارسينته مدنياش الله بدا أقل بارلمانكا مدحذا يا وكيلذا أن ولا لها النهي يا صاحبذا النهي كسو قيب قلي مناسبة madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marti sharafta kala duwan ee timida meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahad oo dhan waxaa u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibadanahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya dhowr iyo 60kii sano ee Soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hanaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 22kii sano ee ciidamadu ay talada hayeen dhaqankaas waa mid
waa mid ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay. mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti madaxda iyo shacabka reer Jabuuti mahadiha ka gaartay dalkeenna xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda. 1 dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo. waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland. waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka 3 xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi wada ogol iyo wadajir ka dhaxeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala ama loo sameyn doono. 4 taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. 5 taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanasul. taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga. dhismaha garsoon hufan madax bannaan isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeenna Soomaaliyeed ay qabaan. cadaaladdu waa udubdhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado Soomaali heshiis ah waxaa kale oo hiraalkeenna siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. himilooyinka dowladnimada ay tiigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. 1 inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadino shacabkeenna. 2 inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka dariska ah kuwa walaalaha ah
iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dalalka dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin 3 xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale dadka Soomaaliyeed waa kuwa lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka ayagoo dalal badan oo Afrika bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin si gaar ah waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhaxeeya dalalka guud ahaan gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska Afrika waxaan iyana mabda asaasi ah noo noqon doona siyaasad arrimadeed oo dhexdhexaada isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh intaas inkasta oo dalkeenna sameeyey horumar ballaaran haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashanno sida aad la socotaan waxaa haatan gobolka geeska Afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya 100 milyan oo qof Soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sanad walba waxaad moodaa inaan u dhaxayno 6 bilood oo biyo dhaamin ah iyo 6 bilood oo aan la tacaalayno fatahaad ka dhalatay roobab zaa'ida iyo webiyada oo biyo zaa'ida wado waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheenna dowladnimo sidaas daraaddeed dowladdaydu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashanno dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxaa lama huraan ah inaan dhidibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheenna gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado la tacaalidda masiibooyinka waxaa sidoo kale himilooyinkeenna horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeenna howlaha hortabyada leh ee aan abbaari doonno waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deyn cafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqayno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika bangiga horumarinta Islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha
lacagta deynta ah Soomaaliya ku leh waxaan kaloo qayb weyn ka noqon doonaa waxa qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deyn cafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeena hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeena alla ku manaystay khayraadka mudanayaal marwooyin madaxda sharafta leh dowladayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraa waxqabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed ay higsanayaan muddo aanay mudan yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa mahadcelin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed oo wakiiladooda ay mar kale isaareen mas'uuliyadda sare ee dalkeena yididiilada ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan dowlad ka turjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doono anigoo kaashanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin saaxiibada Soomaaliyeed ee maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeena ee ku salaysan Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah waxaan ku soo gunaanadayaa aan cambaaraynaynaa ugu dambeyntii xalay dadkii Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee Soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay 32 sano aan soo dhaafnay dalkeennu waa dhaqaaqay waa socdaa in yar baa inoo dhiman waan ka baxaynaa waxaanan sii codsanaynaa in ay dadka Soomaaliyeed isku duubnaadaan isu tanaasulaan dhammaanteenna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijinno Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Please let us respect the order. We still have President, Their Excellency sitting. waxaan jecelahay in la joogo madaxweynayaasha laga xishoodo
martida nooha iyo madaxweynayaasheenaba la sagootiyo inay ka baxaan hoolka waddada la banneeyo raallina ahaada madaxweynaha iyo madaxweynayaashii hore iyo madaxweynayaasha martida noo ah waddada loo banneeyo miidiyaha iyo brotokoolka anaga banneeyin dariiqa raalli ahaada ka wareega hadda saaxiib yal xagee la marayaa u banneeya ha waddada ha la banneeyo madaxweyne waa taagan yihiin madaxweynayaasha kale ismaaciil madaxda halookaada intay ka baxayaan min fadlakum respect aan muujinno madaxweynayaasha halookaadii ha gudbeen